السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي waxaa taagan su'aashan oo ah maxay dooradu badanaa ay dhulka u faagtaa waayahay waa barnaamij aad iyo aad u cajiib badan ee aan guda galno un kaliya kadib waa daawan doontaan ku soo dhawaada barnaamijka hadda ka hor ayaa dooro iyo ciyaalkeeda ku baxay tinta dooradii waxa ay go'aansatay in tinta ay iska wada jarto iyo ciyaalkeedaba ay ka jarto waxa ay sakiin u doonatay gorgor markaasi oo isaga watay sakiin gorgorkii ayay u tagtay gorgorkii ayay ka codsatay in sakiinta uu siiyo kadibna ay ku soo hawaysato hoosheeda gorgorkii uu markaasi ogolaaday balse waxa uu markaasi ka codsaday in sakiinta dib ugu soo celiso marka ay hoosheeda ka dhameysato ilaan sakiinta ilaan waa agabka kaliya ee markaasi cuntadiisa uu ku adeegto dooradii ayaa iyadoo faraxsan kusoo tagtay gorgorkii waxayna ayna guda gashay markaasi in iyadu markaasi ay timaha iska jarto kadibna ay ciyaalkeeda ka jarto intaa kadib waxa ay guda gashay markii ay isnadiifiyeen in markaasi sakiintii ay ku riday boorso ayna gelisay gurigeeda gadaashiisa halkaasi ayay iskaga ilowday dooradii sakiintii markaasi muddo kadib waxaa kusoo laabtay gorgorkii marka uu doonayay sakiinta inuu ka qaato doorada markii uu soo degtay gorgorkii ayuu la hadlay dooradii wuxuuna uu ku yiri isii sakiinteydii adigu ma tihid qof ballanka oofiyay waana iga markaasi ila soo daahday alaabteydii dooradii ayaa isla markiiba markaasi jahwareertay oo soo xasuusatay in gorgorka ay ka haysato sakiin waxayna ku tiri gorgorow iga raali noqo waan ilooway ina markaasi saamax waxaana ku raadinayaa sakiintaadii gorgorkii ayaa iska tegay waxa markaasi uuna ka codsaday markaasi in markii ugu dambeysay ay tahay sakiintiisana ay u soo celiso dooradii ayaa raadisay in badanaa raadisay muddo kadib maalinkii labaad ayaa la gaaray gorgorkii ayaa soo laabtay balse natiijadu waxay noqotay in gorgorkii weli sakiintiisii la la'yahay gorgorkii ayaa markaasi markaan xanaaq dartiisa waxa uu ku yiri waan kuu sheegay waxaana ballan kuula galay in markaasi aad ii soo celiso sakiinteydii balse waxaan markaasi kii kaaga dhigayaa markaasi baadafurmiya waxsaas ayuu yiri shimbiraheedii ka mid ah ayuu qaatay waxaanuu markaasi kaga dhigay ciqaab oo ah markaasi in balankii ay ka bixi weysay kadibna uu soo laaban doono berito haddii uu waayana sidoo kaleeto uu ka qaadan doono shimbir kaleeto balse dooradii iyaduna waa ay dadaashay ilaa markaasi gurigii ay degneed ee dhan ay dudumiso balse natiijadu ayaa sidii kaleeto oo noqotay in markaasi ay weysay sakiintii gorgorkii ayaa markaasi waxa uu markaasi ballan ku qaaday in markaasi doorada shimbirkeeda uusan hal xaba ka cafinin maadaama sakiintii markaasi ahayd qalabkii markaasi uu ku ogorsanayay ama markaasi ahayd markaa cuntada uu ku raadsanayay ee dooradii ka lumisay gorgorkii ayaa xanaaq dartiisa shimbirihii ka dhameeyay dooradii halka sheekada ay kasoo bilaabatay markaasi ay tahay dafadu in markaasi shimbiruhu ay markaasi ka daftaan doorooyinku halkaasi ayay tahay sidoo kaleeto doorooyinku iyaguna mar alle waxa ay qodaan dhulka ma isweydiisay sababta waxay tahay gorgorkii markaasi sakiintii ay ka soo qaaday ayay ilaa iyo haatan raadinaysaa waxaan filayaa inaad aad iyo aad ula dhacday sheekadaas aadna la yaaban tahay ilaa hadda balse cashirkaasi haddii aad markaasi aad rabto in si waafaqsan inaad ka markaasi bogato waxaad u laabataa buugga fonforka isna dugsiyeedka manhajka cusub ee dowladda soo saartay buuggiisa ingiriishka ah weliba beejkiisa shanaad halkaasi ayaad aan dhahay jabtarkiisii shanaad halkaasi ayaad kaga bogan doontaa sheekadan iyadoo markaasi kala dhigdhigan waxaan ahay al-ustaad doctor muhandis quraac akhil yacquub faysal aadam yacko yare tan iyo kulanti dambo sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu